madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta la sheegay inuu magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya u ambabaxay iyadoo la sheegay in halkaasi madaxweynaha iyo waliba wafdigiisa ay gaareen waxaana la filayaa in madaxweynaha uu ka qayb galo shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo ujeedkiisu uu yahay horumarinta dhinaca qorshaha caafimaadka ee dunida. Shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa sidoo kale 5 arrin oo kala ah caafimaadka galmada iyo taranka oo qayb ka ah caafimaadka guud, maalgelinta loo baahan yahay in lagu xaqiijiyo dhammaan yoolka barnaamijka ICPD, kala duwanaanshaha dadka iyo awoodda ay u leedahay in lagu dhaqaaqo kobaca dhaqaalaha iyo horumarka joogtada ah, tallaabooyinka lagu soo afjari doono gacan qaadka ku salaysan jinsiga iyo dhaqamada waxyeelada leh iyo xuquuqda daryeelka caafimaadka galmada iyo taranka iyo waliba arrimo kale. warbixin hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay inay jiraan in ka badan 232 milyan oo ruux oo doonaya inaanay uur qaadin balse aan isticmaalin walxaha looga hortago. maalin walba waxaa dhinta ilaa 800 oo carruur waliba arrimo la daweyn karo inta uurka lagu sido ama xilliga dhalmada. ilaa 33,000 ayaa lagu qasbaa guurka halka sanad walba 4 milyan loo gudo qaab fircooni ah. shirkan oo inta badan haweenka lagu awoodsiinayo waxa iska kaashanaya Kenya, Denmark iyo waliba hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Soomaaliya ma lahan siyaasad la xiriirta xadiditaanka taranka, caafimaadka galmada iyo waliba arrimo badan oo shirka looga hadlayo. waxaana jooga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaradda caafimaadka iyo waliba hay'ado kaleeto oo dawladda Soomaaliya ugu wakiil ah arrimaha la xiriira qoyska iyo caafimaadka matali kara uguna aqoon badan madaxweynaha. waa maxay sababta uu madaxweynaha u aaday Kenya tan iyo bishii February ee sanadkan 2019 ma fiicnayn xiriirka Kenya iyo Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo markii uu tagayay Koonfur Afrika bishii May ee sanadkan in uu diiday marista Kenya isaga oo ka degay dalka Tanzania. waxa kale oo shirarkii ay Soomaalida u tagi jirtay Nairobi loo wareejiyay Addis Ababa. haddaba maxaa isbedelay waa su'aasha la isweydiin karo. Filla Soomaaliya waxa muuqata inay kala hadlayso isna bedeshay siyaasadeeda la xiriirta Kenya wixii ka dambeeyay shirkii qaramada midoobay ee New York. kolkaas xogayaha qaramada midoobay oo u sheegay madaxweyne Farmaajo inuu aqbalo wadahadalka ku aadan dhinaca badda ee uu la galay Kenya. Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo Afrika ayaa iyaguna ku cadaadiyay Farmaajo inuu wadahadal la galo Uhuru Kenyatta si wadahadal loogu dhameeyo muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya. shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa lagu wadaa in ay jiri doonaan shir dacoodyo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo midka Kenya Uhuru Kenyatta. arrinta ugu muhiimsan waa muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya. ujeedku waa mid cad, waa in kiiska laga soo celiyo maxkamadda cadaaladda qaramada midoobay oo loo balansan yahay in la qabto sanadka soo socda ee 2020 gaar ahaan bisha